Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka qodobada aan idin haynana waxa uu waaweyn diyaaradaha dagaalka Israa'iil warqadaha ay ku daadiyeen gudaha dalka Suuriya xooga xuutiyiinta dalka Yemen gantaalada xoogan ee ay mar kale la kulmeen qodobo kale ayaa raaci doona mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxa aan ku hormarayaa danjiraha dawladda federaalka Soomaaliya ee dalka Algeria ayaa laga gudoomiyay nuqul kamid ah warqadaha aqoonsiga ee danjirinimo waxaana ka gudoomiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Algeria Ahmed Attaf danjire Yusuf Ahmed Hassan Yusuf Diego ayaana shalay warqadaha aqoonsiga ee danjirinimo loo gudoomiyay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Algeria iyada oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada caasimadda u ah dalkaasi Algeria xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Algeria ayaa ah mid aan waqti xaadirkan soo bilaaban xiriirka labada dawladood Algeria iyo Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid soo bilowday tan iyo bilowgii sanadkii 1960 xilligaas oo ay Soomaaliya xornimada qaadatay waxaana dawladda Algeria ay ka mid tahay dawladaha Carbeed ee sida weyn u garab istaagay dawladda federaalka Soomaaliya xilligaasi labada dawladood waxa ay ka mid yihiin ururka jaamacadda Carabta midowga Afrika ururka iskaashiga Islaamka Jire Yusuf Diego ayaa ballan qaaday in isbedel weyn uu doonayo inuu ka sameeyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dawladood ee Soomaaliya iyo Algeria waxa uuna sheegay inay jiraan fursado badan sida waxbarashada iyo ganacsiga dhinaca kale hadii aynu eegno gudaha dalka Suuriya diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa lagu waramayaa inay shalay oo Khamiis ahayd in magaalada Kooyo lagu magacaabo oo dhacdo galbeedka magaalada Darca ee baadiyaha koonfureed ee dalka Suuriya in lagu daadiyay warqadahaasi oo digniin loogu diriyay dadka shacabka ah ee Suuriya iyo maleeshiyada la sheegay inay ka gudbiyaan harada Yarmouk lagu magacaabo sida wararka ay sheegayaan wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa baahisay macluumaadkan waxa ayna ka soo xigatay dadka deegaanka dhinaca kale hadii aynu eegno xuutiyiinta dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen mid kamid ah diyaaradaha droniska ee Mareykanka nooca MQ-9 loo yaqaano waana diyaaradii 18aad ilaa 19aad ee ay soo ridaan xuutiyiinta dalka Yemen oo uu Mareykanku u leeyahay waxa ayna sheegeen in arintani ay ka dambeysay kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay duqeeyeen magaalada Sanca oo caasimadda dalka Yemen afayeenka xuutiyiinta Yemen Yahya Sariica ayaa sheegay in nidaam difaaceedkooda uu soo riday diyaaradda MQ-9 la yiraahdo xilli ay ku guda jirtay howlo sahmin ah